cash flow quadrant waa buugii labaad oo Robert Kiyosaki qoray kadib markii uu ku guuleystay buugiisii koowaad ee Rich Dad Poor Dad. Cash flow quadrant wuxuu ku bilaabanayaa meeshii oo Rich Dad Poor Dad ku istaagay. Wuxuu sharaxayaa in dunida businesska ay u qaybsanto 4 quadrant. Waa maxay cash flow quadrant? Sida ugu fudud aad ku fahmi karto, cash flow quadrant waa sidan. E waxay u taagan tahay employee ama shaqaale. Shaqo ayaad haysataa, waad shaqaysaa. S waxay u taagan tahay small business owner, self-employed. Qof oo iskiis u shaqaysta ah, qof oo shirkad iskale oo asiga ka dhex shaqeeyo. Adiga ayaa iskale shirkadda, adiga ayaana ka dhex shaqeeyo. B waxay u taagan tahay big business owner. Waxaad leedahay company dad badan ayaa ku shaqeeyo. System ayaad leedahay oo dadka kaaga shaqeeyo oo mar walba ay raacaan. Robert Kiyosaki wuxuu dhahay haddii business aad leedahay oo businesskaas adiga kuu baahan yahay inaad ka dhex shaqeyso, waxaad leedahay waa shaqo. Laakiin haddii aad business leedahay oo businesskaas adiga kuu baahnayn inaad ka dhex shaqeyso oo dad kale kaaga dhex shaqeynayo, markaas waxaad leedahay waa business system. I waxay u taagan tahay investor ama maalgashade. Lacag ayaa ku shaqeysa. Robert wuxuu dhahay quadrant walba aad ka dhex shaqeyso waxay leedahay faa'iido iyo khasaaro. Faa'iidada ay leedahay inaad ka dhex shaqeysato quadrantiga ida ama shaqaalaha waa mushahar ayaad leedahay bil walba haddii aad shaqeyso. Waxaad xaq u leedahay in fasax lagu siiyo oo lacag lagugu siiyo intaad fasaxa ku maqan tahay. Khasaaraha waa qoyskaaga waqti yar ayaad ula qaadanaysaa, inta badan waad shaqeysaa. Lacag badan haddii aad u baahato waa inaad waqti dheeraad aad shaqeysaa. Horumarkaaga wuxuu badiyaa mashquulkaaga. Canshuur badan ayaa laga qaadaa markaad shaqaalaha tahay. Canshuur badan ayaa laga qaadaa markaad shaqaalaha tahay. Canshuurta laga qaadayo waxay u dhaxaysaa 30% ilaa iyo 50%. Waxay ku xiran tahay xirfadaada, income-kaaga. Waqtigaaga ayaa waxaad ku bedelanaysaa lacag. Lacagta lagu siinayo waxay ku xiran tahay inta aad shaqeyso. Haddii shaqada ka istaagto ama aad xanuunsato ama company aad u shaqeyso oo khasaaro oo aad adigana shaqada laga bariyo, lacagtaada meesha ayay ku istaagaysaa. lacag ma ku soo galayso. Faa'iidada ay leedahay quadrantiga iskiis u shaqeysta waa adiga isku talinaya, adiga ayaa ismaamulaya. Ma jiro qof ku dhahayo waqtigaas shaqada ku imo, waqtigaasna shaqada kaga bax. Xur ayaa tahay, waqtigaad rabto ayaad imaanaysaa, meeshaad rabtona ayaad u dalxiis aadaysaa. Khasaaraha waa canshuur badan ayaa laga qaadaa. canshuurta iskiis u shaqeysta laga qaado waxay u dhaxaysaa 30% ilaa 60%. Si aad mushaar u hesho waa inaad shaqeysaa. Haddii aad baxdo waxaa laga yaabaa inaadan meesha business ugu soo noqonin, waayo businesskaaga shaqo ayuu ku yahay, adiga joogitaankaaga ayuu ku xiran yahay si lacag ay kuu soo gasho. Faa'iidada ay leedahay quadrantiga bida ganacsadaha waa OPM iyo OPT, dadka kale lacagtooda iyo dadka kale waqtigooda. Canshuur yar ayaa laga qaadaa ilaa iyo 20% ayay gaaraysaa canshuurta, waayo corporation ayaa leedahay, waxaadna dakhli soo gelinaysaa waddanka maadaama oo aad dad badan shaqaaleysiinaysid. Xur ayaa tahay, waqtiga rabta ayaa qoyskaaga la qaadan kartaa iyo meesha aad rabto ayaa u dalxiisi kartaa. Muddada rabtana waad ku maqnaan kartaa. Waxayna u badan tahay inaad ku soo laabato businesskaaga oo sidiisa hore ah ama kasii fiican. Khasaaraha waa inaad taqaanaa sida dadka loo maamulo, waxaana laga yaabaa inaad lacag khasaarto. Faa'iidada ay leedahay quadrantiga ayada maalgashadaha waa dadka kale lacagtooda iyo dadka kale waqtigooda. Lacag ayaa ku shaqeynaysa. Khasaaraha waa waxaa laga yaabaa inaad lacag khasaarto. Dhanka bidix waxaa muhiim u ah inay ammaan haystaan. Dhanka midigna waxaa muhiim u ah inay xornimo haystaan. Qasab ma ahan in hal quadrant oo kaliya lacag ka soo gasho. Adigoo ayaa waxaa go'aansan kartaa in ay investment ku samaysato oo sidaas iyo ay lacag ka soo gasho oo iyo ay sidaas ku noqoto. Haddii aan ku kala dhigo, haddii aad rabto 4 quadrant inay lacag ka soo gasho way ka soo gali kartaa. Maskax ahaan way fududahay inaad fahanto, laakiin emotional ahaan, dareen ahaan way adag tahay bedelkaas. Sidaas darteed intaadan bedelin quadrant waxaa u baahan tahay inaad marka hore bedesho sidaad u fikirto. Robert aabihiisa asigoo shaqaale ah ayuu wuxuu u bedeshay B ganacsade oo franchise ayuu iibsaday, laakiin wuu ku khasaaray. kadib wuxuu dib ugu noqday dhanka oo amniga ku qabay. Sidaas darteed intaadan u soo bedelanin quadrantiga aad rabto, ugu horreyn iska ogow habka dadka dhankan jooga ay kaga duwan yihiin dhanka aad ka soo bedelanaysid. Robert wuxuu dhahay dadka security-ga ama amniga u bartay markay u soo bedeshaan dhanka freedom-ka ama xornimada muhiimka ka ah oo ay khasaaro ku dhacdo, waxay dib ugu cararaan meesha ay u barteen oo ah dhanka bidixda ammaanka. Laakiin dadka xornimada muhiimka u ah markay dhib iyo hakad ama khasaaro ku imaado way dagaalamaan ilaa ay ka xuroobaan. Dhanka midigta haddii aad rabto inaad u soo bedelato waa inaad marka hore emotionally neutral ahaato oo aadan ka cabsanin inaad lacag khasaarto. Robert wuxuu dhahay ibn aadamku wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood. Ibn aadamku wuxuu ka kooban yahay jirka, maskaxda,
dareemaha iyo nafta. Iskoolku wuxuu dadka ka dhisaa maskaxda, laakiin inta kale shaqo kuma lahan. Ninka askariga inta oosan askari noqonin waxaa laga dhisaa ugu horeyn jirka. Waa inuu ahaado qof adag. Maskaxdana wuu ka dhisan yahay sababtoo ah wax walba practical ayuu u sameeyaa. Emotionalna ama dareemaha wuu ka degan yahay. Wuxuu u bartay haddii uu dagaal ama wax la mid ah oo galayo oosan baqin, oo waxaa laga yaabaa inuu sameeyo waxyaabo oo dadka caadiga ah samayn karin, oo laga yaabo dadka inay dhahaan war miyaadan ibn aadan ahayn. Waxay ula jeedaan miyaadan dareen lahayn. Spiritual ama nafta way ka dhisan yihiin. Waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan waxay aaminsan yihiin oo ah in wadankooda ay difaacaan. Book fiican oo ka caawinaya sida ay tahay inaad u fikirto si aad u gaarto hadafka aad rabto waa Think and Grow Rich iyo Emotional Intelligence. Robert wuxuu dhahay waxaa jira 5 nooc ama 5 heer oo ay u kala baxaan dadka maalgashada. Heerka koowaad waa qof eberka ah dhanka aqoonta dhaqaalaha. Waa qof aan aqoonin sida lacagta ay u shaqeyso. Lacag badan ayaa soo gasha, laakiin lacagta soo gasha waxaa ka badan lacagta ka baxdo. Lacagta mushaarka markay helaan waxaa laga yaabaa inta aysan bisha dhexdeeda la gaarin inay ka dhamaato oo ay deyn u baahdaan. Deyn badan ayaa lagu leeyahay. Talada aan siinayo waa xakamee lacagtaada, deentana iska bixi. Heerka lamaadna waa waxaa jira dad lacagtooda ku keydsada guryahooda ama bankiyada. Dadkan deyn ma qaataan, lacagtooda way keydsadaan. Robert wuxuu dhahay inaad lacag keydsato way fiican tahay, laakiin ha u keydsanin inaad markii aad shaqada ka fadhiisato isticmaasho. Ee u keydso inaad ganacsi ku samaysato si lacagtaada kuugu sii shaqeyso inta aad bankiyada ama gurigaaga iskaga keydsan lahayd. Robert wuxuu dhahay wax aqligal ilama ahan inaan faqri ku noolaado oo aan ku dhinto taajirnimo. Dhibaatada ay leedahay in bankiga ama guriga lacag ku keydsato waa inflationka ama sicir bararka. Sicir bararka wuxuu u dhaxeeyaa 1% ilaa 3%. Dadka lacagta markay bankiga ku keydsadaan ROS-kooda, return on saving-kooda waa 1% ilaa 2%. Haddii sicir barar uu dhaco, lacagtooda hawada ayay raacaysaa. Dadka guriga ku keydsada lacagtan wuxuu dhahay haddii sicir barar uu dhaco, lacagtooda way qiimo beelaysaa. Tusaale ahaan, lacagta dollarka inta u dhaxayso 1970 ilaa 2020 wuxuu qiimihiisa dhacay sida aan ka soo helay website-ka Inflation Tool 582%. boqolka dollar ee 1970 wuxuu u dhigmaa maanta ku dhawaad $700. Waxaa laga wadaa wax aad ku iibsan jirtay $100 1970 maanta 2020 wuxuu joogaa isla wixii $700. Su'aashu waxay tahay qiimaha lacagta wadankeena meeqo ayuu hoos u dhacay. Heerka saddexaad waxaa jira qof wax bartay oo aqoon u leh sida maalgashi loo sameeyo, laakiin oo mashquulsan. Wuxuu ku mashquulsan yahay qoyskiisa, shaqadiisa iyo noloshiisa. Wuxuu ka cabsanayaa inuu khasaaro. Wuxuu ku kalsoon yahay in lacagtiisa dad kale oo u dhiibto si ay maalgashi ugu sameeyaan. Dhibaatada ay leedahay midaas waa haddii qofkaas oo u dhiibtay lacagta uu khasaaro, wax xirfad oo ka faa'iidayo ma lahan. Waxaa laga yaabaa xataa in dib dambe oo maalgashi u sameynin. Xataa waxaa laga yaabaa haddii uu qof oo u imaado oo ku dhaho waxaan rabaa in aan maalgashi sameysto ee talma isiin kartaa, markaas wuxuu dhihi doonaa hayaay war miyaad waalan tahay, maalgashigu waa halis, anigan ku khasaare, iska daa waxaa iska shaqeyso, lacagtaada meel dhigo. Dadkaas oo kale tala akaraasanin. Heerka afraad waa qof aqoon dhaqaaleed iyo aqoon maalgashi leh. Mar walba aqoontiisa ayuu kordhiyaa. haddii maalgashi oo rabo wuxuu u tagaa dad horey ugu jiray waxa oo raba inuu maalgashto si fikrad ugu helo meesha oo raba inuu maalgashado. Mar walba aqoontiisa ayuu kor u qaadaa inta oosan meel lacag kaga tuurin oo duco ka dabageynin. Wuxuu ku dadaalaa inuu wax walba ka ogaado oo markuu kalsooni dareemo oo amino inuu maalgashan karo, markaas ayuu lacagtiisa gashadaa. haddii uu khasaaro, aqoon iyo xirfad ayaa u kordhayso. Heerka shanaad, heerkan waa heerka ugu sareeya, waa qof ka imaaday quadrantiga bida. Waa qof yaqaanaya sida loo maamulo dadka kale lacagtooda iyo dadka kale waqtigooda. Wuxuu yaqaanaa sida suuqa lacag looga sameeyo marxalad walba oo suuqa ku sugan yahay, haddii uu hoos u dhaco suuqa ama haddii uu suuqa kor u kaco. dadka aad ayay u jecel yihiin lacagtoodana way ku aaminayaan sababtoo ah aqoon iyo khibrad ayuu u leeyahay waxa uu sameeyo. intaas ayaan ka faa'iiday buugga Cash Flow Quadrant. adigana inaad wax ka faa'iido ayaan ku rajaynayaa. haddii aad jeceshahay inaad akhriso buuggan asigoo PDF free ah ayaa waxaad ka heli kartaa Facebookga Googa. hoos ayaan link ku dhigayaa, ama waxaad ka heli kartaa sidoo kale asigoo free ah www.pdfdrive.com. sida mar walba waad ku mahadsantahay waqtigaaga. waxaan ku rajaynayaa farxad iyo caafimaad badan.